madaxweynehenu geesigii marxaladii geesigii marxaladii مجتمعي قدورتو مجتمعي قدورتو وقانا سوغيه شيخ شريف مكانو وقانا سوغيه شيخ شريف مكانو محمد الشعب مجتمعي قدورتو محمد الشعب مجتمعي قدورتو وقانا سوغيه شيخ شريف مكانو وقانا سوغيه شيخ شريف مكانو ماموسكيو تلادقو إليكم مرعليا وينك مذكر 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 مدحوينينو هاليي من مدور مدحوينينو هاليي من مدور مرلبات مدادي مرلبات هدادي مدحوينينو هاليي من مدور kadib markii ay meesha ka baxday dowladii kacaanka horaantii sagaashameeyadii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya dib ugu soo celisay hanaankii dowladnimada inkastoo madaxweyne sheekh shariif dowladiisa ay ka hor imaadeen caqabado aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen dagaal xoogan oo ay kala soo horjeedeen kooxaha mucaaradka sanadii 2009 madaxweyne sheekh shariif waxa uu ku guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliya iyadoo isla sanadkaasi 2009 madaxweyne sheekh shariif uu ciidamada dowladda Soomaaliya loogu soo tababaray jamhuuriyadda Jabuuti oo tababarkooda u soo xiray ciidanka iyo saraakiishiisa waxaan rabaa si gaar ah inaan uga mahad celiyo waqtiga dheer oo dul qaateen dhibka iyo tababarka iyo gaajada qorraxda iyo qabowga iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay dalkooda dhibaatada ka saaraan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar waa tilaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaan hubaa rag kale oo idinla midana inay sidaas oo kale hawsha aad soo marteen ugu dhex jiraan ama ay soo dhamaysteen waxaa la socotiin dhibaatada shacabka Soomaaliyeed soo martay waa dhibaato aad u ballaaran dowladii dhexe marka la burburiyay waxaa la socotiin dadkii in loo abaabulay inay iyagu isdilaan dadaal kastoo la sameeyana waxaa hor istaagay dad sharwadayaal ah ummadda khayrkeeda aan jeclayn arrintuna waxay nala soo gaartay meesha aragteen wixii la soo maray oo dhibaato ahay maanta cid wax ka faa'iido ma jirto waxaa la dhihi karaa cid walba waa khasaar kii ka shaqeeyey
iyo kii dhibaatada lagu sameeyey iyo kii ka aamusay intuba waa ku khasaareen sumcaddii ummadda soomaaliyeedna waa la baabi'iyey lagama faa'iidaysanin ilaahay subxaanahu wa tacaala fursadaha ummadda soomaaliya la keli yeelay oo ay tahay inay yihiin dad isku mid ah dhinac walba ama xagga luqada ha noqoto ama xagga diinta ha noqoto ama xagga xataa madabyo kala duwan ma leh kulligood waa madab keliya waa dad wax walba ka midaysan oo ilaahay uu ka midayay subxaanahu wa tacaala arrintaas waxay ahayd in looga faa'iidaysto in nabad iyo xasilooni sharaf iyo horumar dalka in lagu soo dabaalo nasiib darro arrintaas uma dhicin waxa noo furan marka waxay yihiin inaan dariiqaas mugdiga oo dhibaatada ah kusii soconno iyo in la joojiyo oo aan aadno dawladnimo midnimo cadaalad gacmahoo la isqabsado waxaan hubaa doorashadu inay tahay inaan aadno nabad iyo midnimo iyo cadaalad inaan aadno gacmaha isqabsano arrintaas laguma gaari karo arrintaas laguma gaari karo caatifo laguma gaari karo waxaa lagu gaari karaa caziimo ama go-aan adag waxaa lagu gaari karaa qorshe waxaa lagu gaari karaa isfaham waxaa lagu wada gaari karaa inaan ka wada qayb qaadano dhammaanteen waqti yar kadib madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sidoo kale tababar u soo xiray ciidamo dowladda soomaaliya loogu soo tababaray dalka uganda isagoona ciidamadaasi kula dardaarmay inay gutaan waajibaad qaran farxaday noo tahay inaad nabad ku soo laabateen oo aad soo dhammaysateen tababarkiinni waa sida wasiirku u sheegay horey aan isu soo aragnay ballantuna waxay ahayd mar kale halkan in la isku arko insha allahu tacaala haddee dawladdu ha tabar yaraata laakiin dadaal badanaa socda dadaalkaasuna wuxuu ku wajahan yahay soomaaliya in dawladnimadeedii la soo celiyo amnigaana ugu horreeya amnina maxaa ugu horreeya ciidan soo ma marka annagu dhinaceenna wixii tabartu tahay oo baahiya inaan daboolno adinkana wixii awooddiinna ah oo karaankiinna aad ka shaqaysiin waxaan u malaynaa sidaasay ballantu ahayd ciidan waxaa ugu horreeya oo laga rabaa amarna inuu qaato dishibiliinkiisuna uu fiican yahay haddii ciidan dishibiliin loo amarka qaata la helo haddii la helo dawlad ciidankaasi wixii u baahnaa suurto gelisa dawladnimadii waa imaanaysa guushuna waxaa ogaatiin badi iyo yaraan kuma xirre guusha allah bixiya subxaanahu wa tacaala asbaabta ay ku timaadana waa kala dambaynta iyo hadafka wanaagsan oo qofka uu leeyahay uu higsanayo inta adinka aad tababarka ku jirteen ciidamo kale aad tababarka ku jiray oo u diyaar garoobaya sida aad u diyaar garoobaysiin kuwo kale waxay aadi doonaan tababaro kuwo kale dalka gudihiisay ku tababaro doonaan kulligoodana ujeeddadooda waxay tahay inay u howlgalaan sidii soomaaliya nabad loogu soo celin lahaa mas-uuliyad weynaa naga wada saaran inaan hawshaas qaran gudanno waana taariikh haddaad maqasheen SYL haddaad maqasheen sayid maxamed cabdulla xasan haddaad maqasheen halganno fara badan oo ay idiin saamixi weysa inaad ka qayb qaadatiin kan halgannadaasuu la mid yahay waxauna ula mid yahay soomaaliya burburta in la soo celiyo amnigeeda la soo celiyo ciddii ka qayb qaadata waxay leedahay taariikh wanaagsan haddii shalay lalahay maxay ahaato la isku tilmaamayay dabadhilifnimo ama la isku tilmaamayay diinka fogaasho diintiina waa la qaatay taladana Soomaaliya leh madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo dawladdiisa ay dagaal adag kula jirtay sidii ay dalka Soomaaliya dib u gaarsiin lahayd hanaanka dawladnimada inkastoo gobollo fara badan oo ka mid ah dalka ay gacanta ku hayeen al-shabaab waxaase madaxweyne sheekh shariif dawladdiisu ay isku taxarujisay sidii al-shabaab ay ugu xoray lahayd gobollada ay gacanta ku haystaan
iyadoo arrintaasi ay keentay in madaxweyne sheekh shariif uu kulan la qaato saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya. fursad weyn ay tahay maanta inaan fadhi isku aragno. marka hore waxaan isku arki jirnay socod degdeg ah anaana codsaday kulankan xagga u baxa anaana codsaday kulankan waxuna ka dhashay booqashooyinkii aan sameynayay fikradii iga soo baxday naqad inaan u baahannahay inaan xoojino dhismaha ciidanka. dawladdu waxay qaadatay sida aad wada ogtihiinba siyaasad ah in la xoojiyo dhismaha ciidanka oo ugu horeeyo ciidanka militariga. waa idinkugu hambalyeynaa marka hore guulaha isdaba joogga ah ee magaalada Muqdisho iyo banaankeedaba laga gaaray. waa guul weyn oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga ay soo hooyeen. shaki kuma jiro ciidamada kalena qayb ay ka qaateen booliska iyo nabad sugidduba, laakiin culayska ugu weyn waxaa qaaday ciidanka militariga. sidaan isu wada sheegnay dalkan waxa uu burburay maalintii ciidanka xoogga uu burburay, mana dhismi karo ilaa ciidanka xoogga uu ka dhismo. maanta fursad waxaan u haysanaa inaan ciidamada xoogga dhisno. waxaan ugu haysanaa marka hore waxaa nala jooga walaalaheen Emison oo fursad noo siinaya ciidamada inaan dhisno, nagu soo kordhinaya khibradooda. waxaa fursad ah dawladdu inay u soo jeedo dhismaha ciidanka iyo tayayntiisa. waxaa fursad ah shacabka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay mar kale kalsooni iyo gacanba siiyaan ciidamadooda qalabka sida. dawladahana la midka ah marka ay dhibaato ka dhacdo waxaa badbaadiya ciidamada dalka gaar ahaan ciidamada xoogga. mithaal waxaan u soo qaadanaa Tunis iyo Masar. waxaa badbaadiyay waa ciidanka. waxay ku badbaadiyeen waa kalsoonida ay ka kasbadeen shacabkooda. taasuna waxay ku timiday askari kastoo Soomaaliya inuu marka hore u soo diyaar garoobay dhididkiisa iyo dhiiggiisa inuu u bixiyo si uu u difaaco dadkiisa, dalkiisa, diinkiisa. sidaas oo askarigu u yahay qofka ugu wanaagsan, qofka ugu fiican, qofka ugu wadaninsan Soomaaliya oo dhan ama qaranka oo dhan. madaxweyne sheekh shariif ayaa waxa uu bilaabay inuu booqasho ku tago furimaha dagaalka gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada ka mid ah gobolka Banaadir oo ay gacanta markaasi kaga dhigeen ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya al-shabaab, isagoona ciidamada dawladda oo deegaanada ka qabsaday al-shabaab kula dardaarmayay inaanay dhibaato u geysan shacabka Soomaaliyeed ee degmooyinkaasi ku dhaqan. shacabka Soomaaliyeedna waxaan jecelahay inaan ugu hambaleeyo guulahan waaweyn oo isdaba joog ah oo ciidamada qalabka sida ay gaarayaan. طبعا sida la socotiin waa waajib qaran in dalka Soomaaliyeed laga difaaco cadow kasta oo soo weerara magaca doonaba ha lahaado. arrintaasuna waxay mataqaanaa keenaysaa ciidamada qaranku inay gutaan waajibaadkoodii. waxaana muuqata falilah alxamdu si wanaagsan inay howlahaas u socdaan. howlgalladu halkan kaliya kama socdaan, waxay ka socdaan meelo kala duwan. waxayna keentay guulo fara badan ee aagga wasaaradda gaashaandhigga. sidaas oo kale howlo badan ka socda. sidaad la socotiin guulo waaweyn waa laga soo hooyay. marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba in dawladda ay u baahan tahay taageeradooda. waxa ay filayaan ay tahay ujeedada ugu weyn oo loo diriraayana waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed nabad ay ku noolaadaan oo horumarkooda ay ku xaqiijiyaan. ha noqdo mid nololeed, ha noqdo mid waxbarasho in la soo celiyo. maxaa yeelay nabad la'aan iyo dawlad la'aan waxba lama gaari karo. waxaan jecelnahay insha Allah tabaaraka wa tacaala sidaas oo kale howlaha ka socda gobolada iyaguna inay guulo intaas la mid ay keenaan. ficlan sidaad ogtihiin guulahaas waa jiraan. marka ciidamadu meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay howlahooda dardar geliyaan, cadowgana sida ugu dhaqsiyaha badan ayagoo dul qaadaan. ciddii mataqaanaa caqligooda soo laabtana in fursad loo siiyo in ay ka soo baxdo. marka waxaan ugu baaqaynaa mar kale
dhalinyarada la marin habaabiyey inay shacabkooda u soo laabtaan iyo dawladooda dhinaca kale dadka ajaanibta u yimid Soomaaliya inay dhibaato gaarsiiyaan waxaan leenahay isaga baxa shacabka Soomaaliyeed waxay u soo jeedaan in ay nabadooda iyo amnigooda iyo dawladnimadooda ay dadaal ku bixiyaan oo ay soo ceshadaan dowladda Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxay noqotay dowladii labaysa dowladii Maxamed Siyaad Barre iyadoona dowladihii ku meel gaarka ay soo martay dalka Soomaaliya ay noqotay dowladda ugu wanaagsan ama qabatay wax qabad la taaban karo madaxweyne Sheekh Shariif ayaa waxa uu kulan la qaatay xildhibaanada baarlamaanka sanadii 2011 isagoo madaxweynaha markaasina xildhibaanada baarlamaanka ugu baaqay in ay qaataan hubka isla markaasina ay la socdaan ciidamada qalabka sida si ciidamadu ay ogaadaan in ay ka dambeeyaan mas'uuliyiin qaran maantana hadee Ilaahay fadligiis kuma ballansanayn inay maalin sidaan ku soo aado laakiin Ilaahay ku soo aadiyay waa fursad fiican marka waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto markii hawsheena aan dhameysano xildhibaan kasta inuu tuutiis inta gashado qoragiisa qaato ciidanka la dhexgalo ciidanku hadii aan mataqaanaa gacan siino aan u tagnana moral ay helayaan haddii aan ka maqnaano ay noqdaan ciidan kaligood diriraayana waxa laga yaabaa khalad badan inuu dhaco wixii hore oo soo naqashada ahayna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in laga daawoobay oo aysan soo dhici doonin laakiin waxay u baahan yihiin taageer aad u fara badan oo dhinaca shacabka ah muddo badanba waxa ciidamada dawladdu waxay u diyaar garoobayaan inay amniga wax ka qabtaan falillahi alhamdu sida aad ka warhaysiin waxa lagu guuleystay goobo badan oo muhiim ah in gacanta la soo guriyay kamid tahay wasaaradda gaashaandhigga ay kamid tahay warshada caanaha ay kamid tahay rugti saraakiisha sidaas oo kale magaalada Buulaha oo maanta si buuxda iyaduna gacanta u soo gashay iyo magaalada Beledweyne ay ka socdaan dagaal xoogan iyo dadaal badan oo ka jiro waxaan rajaynaynaa guulahaas inay si daba joogsadaan ummadda Soomaaliyeed marka meel ay joogaan waa ugu hambaleynaynaa guulahaas waxaan ka codsanaynaa in taageero iyo garab istaag ay la garab joogsadaan sanadkani 2012 ayaa dowladda madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxay ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada Shabeellooyinka ujeedada ma aha in la dhibaateynayo kaliya waxa waaye in la hubiyo nabadda bulshada sida saraakiisha ciidamadu ay noo sheegeen dadka la soo qabtay dadna tuhma ku jirta dadna waxaa lagu markaati iyo cadeymo jira marka waxaa lagu guda jiraa kala saaridii wax dhibaato ah intay xiran yihiin kuma dhici doonaan Ilaahay idankiisa qofkii aan dambi lahayn waa la sii day doonaa laakiin annaga haddaan Soomaali nahay dadka in la xiran hujja taasna maxay keentay in al-qaacida iyo al-shabaab ay fursad helaan marka intuu dadkii dhibaatay lahaa oo dhiig muslim oo daadi lahay inaan ogolaano dadkii in mataqaanaa su'aal la weydiiyo waa laga maarmaan marka aan ogolaano waa kala dambeyntii waa dawladnimadii waa amnigii oo la ilaaliyo in qofkii la tuhmo la yiraahdo waxa loo baahan yahay in su'aal lagu weydiiyo oo xorriyadaada la qaado ilaa waqti kooban haddii markaas ay cadaato inuu dambi lahayn la sii daayo hadduu dambi leeyahayna sharciga la mariyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa ciidamada qalabka sida waxay soo mareen maraaxil kala duwan waxaa la socotiin xilligii dawladdaana oo jirtay waxaa lagu bixiyay dadaal fara badan maantana waxay soo gaareen meel fiican magaalada Afgooyo la qabta maanta inaan la sheegi karin qof la dhacay iyo qof la dhibaateeyay ilaaha ku mahadsan ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooda arrintaasuna waxay ku timid dadaal iyo xilkasnimo iyo ciidanka laftigooda maanta inay garteen waajibaadka saaran iyo waxa laga filayo inay garteen maanta inay waxay u adeegayaan shacabka Soomaaliyeed inay yihiin aan marna laga filaynin inay dhibaato sameeyaan waxaan shaki ku jirin ciidan cid khalad sameeya lama waayo laakiin muhiimaddu waxay tahay cid khalad ka sameeysa inay saraakiisha u diyaarsan yihiin maxkamadda qalabka sida in maxkamadda la geeyo isagoo madaxweyne Sheekh Shariif uu booqasho ku tagay degmooyinkaasi isla markaasina uu wacad ku maray in qaybaha kale ee dalka Soomaaliya oo ilaa iminka ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab gacanta ay ku dhigi doonto dawladda Soomaaliya marka maadaama dastuurkii la ansixiyayna ku meel gaar waa laga baxay hadda wixii ka dambeeya waxaan nahay dawlad caadi ah insha Allah tabaaraka wa taala marka ummadda Soomaaliyeed waxa leena ha guulaysato ha midowdo ha waarto ciidamadii ku guulaystay inay nabadaan hagaajiyaan oo dhib la'aan mataqaanaa shaqadii qabtaanna waxay yeelan doonaan abaalmarin gaar ah waana ka amaanaynaa halkaas
madaxweyneheennu halyay midnimadu mar labaad nadaadini mar labaad nadaadini madaxweyneheennu halyay midnimadu madaxweyneheennu halyay midnimadu mar labaad nadaadini mar labaad nadaadini Mamoge, Mantia,